السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قيمة بدن كسر هذا موقع قيمة بدن فضلا هدي أتبع صوب تاجنا كان سبسكرايب نوصل موقع كان لايك صار خيب توصيكم وتسكن أي نور وده وحي فكري فعلا إيدي رجلين به مع السنة maanta muuqaalkan waxaan ku gula wadaagi doonaa dhowr ciyaartooy oo caan ka ah kubadda cagta iyo gabi ahaan horyaalada qaaradda Yurub isla markaana haysta diinta sharafta badan ee diinta Islaamka. waxay iskugu jiraan qaar hore u ciyaari jiray iyo kuwa haddeersan bay ciyaaraan ee ka bogasho wacan. waxaan ka bilaabi doonaa ciyaaryahanka lagu magacaabo Miralem Pjanic qadka dhexe ee kooxda Barcelona ee ka dhisan gudaha dalka Spain. ciyaaryahankii hore ee Juventus asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa dalka Bosnia and Herzegovina. waa xirfadle xariif ku ah tuuridda free-kick-yada iyo penalties-ka. sidoo kale waxa uu aad u yaqaanaa dhiibidda baasaska iyo dhalinta kubadaha xoogan. waa shakhsi muslima isla markaana waxa uu ku faanaa diintiisa Islaamka. wuxuu dhashay sanad markuu ahaa 1990. waxa uu waaye qurxan ku soo qaatay kooxda Juventus balse haddeersan waxa uu dheelaa kooxda ka dhisan dalka Spain ee Barcelona. Karim Mustafa Benzema weeraryahanka Real Madrid iyo xulka Faransa waa mid ka mid ah xidigaha ugu caansan horyaalada Yurub. wuxuu dhashay sanadka markuu ahaa 1987. familkiisu waxa ay ka soo jeedaan dalka Algeria ee qaaradda Afrika balse isagu waxa uu doorbidayaa u dheelidda qaranka Faransa. wuxuu bilaabay dheelidda kubadda cagta sanadka markuu ahaa 1996 wuxuuna ku biiray kooxda Olympique Lyon balse haddan waa ciyaartooy weyn isla markaana laga garanayo qaaradda Afrika. waa shakhsi ay wada garanayaan dhammaan jamaahiirta ku xiran kubadda cagta. wuxuu 3 Champions League kula guuleystay kooxdiisa Real Madrid. waa shakhsi sharfa diintiisa isla markaana ay ku weyn tahay. Nicolas Sebastian Anelka waa xidig ay wada garanayaan dhammaan jamaahiirta kooxda Chelsea. waa weeraryahankii hore ee kooxda Chelsea. waa ciyaaryahan taariikh ku leh Premier League. wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa 1979 wuxuuna ku dhashay dalka Faransa. Anelka wuxuu qaatay diinta Islaamka markii ay da'diisu ahayd 16 jir. ka hor diinta Islaamka wuxuu ahaa qof haysta diinta Kiristaanka. wuxuuna cadeeyay in uu ku faraxsan yahay qaadashada diinta sharafta badan ee Islaamka. Masud Osmane Dembele wuxuu ku dhashay dalka Faransa sanadka markuu ahaa 1997. xidigii hore ee Borussia Dortmund ee hadda u dheela kooxda Barcelona. waa xirfadle ku ciyaara lugta bidix iyo tan midigba. waana dhalinyaro lagu kalsoonaan karo inkastoo waayihiisa Barcelona aysan wanaagsaneyn. wuxuu Osmane Dembele kula guuleystay xulkiisa qaranka Faransa koob adduunkii 2018. Osmane waa muslim ay ku weyn tahay diintiisa sharafta badan isla markaana mar walba waxa uu muujiyaa qiimaha ay ku leedahay diintiisa. Granit Xhaka ciyaaryahanka Arsenal iyo dalka Switzerland waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa 1992. Granit Xhaka waa mid ka mid ah xidigaha ugu caansan Premier League isla markaana haysta diinta Islaamka. wiilkan u dheela kooxda Arsenal waxa uu ku dhashay magaalada Basel. familkiisu waa Albanian. aabihiisa waxa lagu magacaabaa Rakib laakiin waxaa jirta arrin ah in walaalkiis ka weyn uu yahay ciyaaryahan u dheela xulka Albania iyo kooxda Basel balse isaga waxa uu doorbiday in uu u dheelo xulka Switzerland. Yaya Toure wuxuu ku dhashay Ivory Coast 1983. xidigii hore ee kooxda Man City ayaa ah mid haysta diinta sharafta badan ee Islaamka.
waa laacib ka dheela qadka dhexe. waayihiisa ciyaaraha waxa uu la kulmi jiray cunsurinimo xagga midabkiisa ah. Yaya Toure waa geesi muujiya xirfadiisa isla markaana muujiya diintiisa Islaamka. Kolo Toure waa walaalka ka weyn Yaya Toure. wuxuu dhashay 1981 waxayna isku magaalo ku dhasheen walaalkiisa Yaya Toure. waa xirfadle yaqaan sida kubadda loo difaaco. xidigii hore ee kooxaha Arsenal, Liverpool, Man City iyo Celtic. waxa uu haystaa diinta sharafta badan ee Islaamka.